ciidamada badda Puntland 23 December 2012 waxa ay ku guuleysteen dagaal dhiig ku daatay oo socday 13 maalmood kadib badbaadinta 22 badmaaxe oo 2 sanadood iyo 9 bilood ugu aftubnaa burcadada Soomaaliya xeebaha Puntland. laakiin go'aanka ah in awood military lagu soo furto dadkaasi waxa ku xeernaa warwar badan. inaad midna disho midna badbaadiso waa waxa oo haddana hal weel ku wada jira. badmaaxayaashu sarajama ka qabeen in ay helayaan badbaadadan. We don't even think of any rescue team because we've done a lot and no one has come to our rescue. muxuu ku soo kordhinayaa hawlgalkani sumcadda ciidamada Puntland? waxay ku soo kordhisay in wadamadii dadkaas u dhasheen oo caalamka oo dhan ay ku qancaan kuna farxaan. markan Puntland waxa soo gaaraya hambaliyo ka imanaysa caalamka iyo wadamadii dadkooda la soo badbaadiyay. يسرني أن أنقل لسيادتكم تحيات فخامة الأخ رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية وشكرهم على جهودكم المبذولة في تحرير بحارة الباخرة آيسبرغ 1. مدحوينها بنتلاند دكتور عبد الرحمن محمد محمود نوحا uu ciidamada ugu tagay saldhigooda si uu ugu soo hambaliyeeyo guushii ay ka soo hoyeen hawlgalkaasi. waxaan maanta idinku nimi inaan idinka hambaliyeeyo idinku bogaadiyo inay hor imaado anigoo aad iyo aad u faraxsan oo maqsuudka ah hawshaad soo qabateen. waqti waliba se waayo aragnimo ayaa laga dhexlaayay maxay ka barteen badmaaxayaashu 32 bilood ee ay aftubnaayeen. I've learned how to talk to pirates. I've learned how to deal with pirates. gudahaan arrimahaasi ayaan diiradda ku saari doonaa barnaamijkan iyo marxaladihii ay soo mareen badmaaxayaashu xilligii la haystay. In fact, at that very moment, I was not able to talk. But when I saw some little boys with some old guns, I was just surprised that these were the people called pirates. Pirates! sidoo kalena waxa door muhiim ah in ka ogaan doonaa habkii uu dhacay hawlgalkii loogu magac daray Humanitarian Rescue. 29 Maarch ayaa ahayd markii ay burcadbadeed Soomaaliya afduubteen markab xamuul ah oo sita calanka Panama oo laga leeyahay shirkad fadhigeedu yahay Dubai oo lagu magacaabo Asal Shipping oo uu leeyahay nin u dhashay dalkaas Imaaraadka. markabkan ayaa waxa uu ka soo goostay xeebta cadan 28 bishii Maarch 2010. kuwa markabka saarnaa ayaa waxa ay u dhasheen wadamada India, Pakistan, Ghana, Sudan, Philippines iyo Yemen. burcadbadeeduna waxa ay la soo aadeen xeebaha Soomaaliya. koorse inta aan markabkan la qabsan shaqaaluhu waxa ay u diyaar garoobayeen in ay quraacdaan shaqadana ay isku bedelaan. hase yeeshee weerar ka dhacay waxa isbedelay xaaladii guud ee shaqaalaha oo qaar badan oo kamid ah qaybaha kala duwan ee markabku aysan waxba ka ogeyn waxa dhacaya. taasina waxay keentay jahwareer guud oo ku yimid shaqaalaha sida uu ku waramay Francisco oo ah ku-xigeenka injineerka ee markabka oo xilligaasi shaqada ku jiray sugayeen qofkii bedeli lahaa si uu u nasto. I'm the second engineer on board the vessel. The very first day the ship was hijacked, I was on duty. waxaan ahaa ku-xigeenka injineerka markabka. xilligii la qabsanayay markabkana waxaan ku jiray shaqada. waxaan diyaar u ahaa inaan ka baxo shiftiga shaqada oo iga ekaa 7:00 subaxnimo. quraac ayaan u baahnaa. waxaana iga raagay ninkii i bedeli lahaa laakiin cidna iima imaan. 7:40 ayaa la gaadhay. cidna iima imaan. dalab dambe ayaan dirsaday. dabadeed waxa ii soo galay chief engineerkii oo ordaya. isagoon ila hadlin waxa uu kordhiyay xawaarihii markabka si xawli ah. dabadeed waxaan weydiiyey chief sidee ayaad u wadaa motorka ma waxaad rabtaa inuu xumaado chief wax jawaabay ma siin. dabadeedna kor ayuu u baxay. markii ay noo muuqdeen oo aanu aragnay in burcadbadeedu weerartay markabka saliidda sida oo laga leeyahay Yemen, kabtanka markabku wuxuu amray in dhawaaqa digniinta la yeeriyo. waxaan go'aansaday inaan kordhiyo xawaaraha markabka waayo waxaan maqlayay rasaas ay isweydaarsanayaan burcadbadeedda iyo ilaalada saarneyd markabka kale. laakiin shaqaalaha ku jira gudaha ee markabka ka shaqeynaya sida qaybta motorka wali way jahwareersan yihiin ee uu Francisco ka mid yahay. Then this guy I sent to is not coming.
So I became perplexed in the engine room. I don't know. ninkii aan dirsaday iima imaan ma ogi wax kor ka socda maxay tahay weerarkani qolka dhexdiisa ayaan iska daba warwareegay I was mad, totally mad. injiinkii kama tegi karo wax aan sameeyo ma aqaan madaxa ay kacay qolka un baan iska daba wareegaa dabadeed waxaa ii yimid mid ka mida shaqaalaha wuxuuna i weydiiyey maa chief engineerkii waxaan u sheegay inuu ii yimid oo uu kordhiyey xawaaraha markabka dabadeed wuu iga tegey oo kor ayuu aaday kadibna waxaa ii yimid chief engineerka wuxuuna igu yidhi francis iqari maxaan kaa qariyaa ayaan idhi orod qolalka hoose aad haddaad rabto inaad isqariso waayo ma garanayo waxaad iska qarinayso sidaas ayaan ugu sii jiray qolkii ilaa iyo 8 barkii aniga oo keliya ilaa uu iigu yimid mid ka mida shaqaalihii oo la socdo nin la yidhaahdo ayuub wuxuuna ii sheegay in burcad ay markabka qabsatay My spirit went away because I've been hearing of Somalia pirates, but I have never seen gone like this on people like. xaqiiqdii xilligaasi ma aanan awoodin inaan hadlo tabarta oo dhan ayaa iga luntay waan khalkhalay maxaa yeelay waxaan maqli jiray burcadbadeed Soomaaliya weligay kuma aan fakirin inaan dhibano u noqon doono burcadbadeeda laakiin markan waxaan ahay dhibano chief engineerka ayaa markaasi dhiirigeliyey oo yiri wiilkaygii isdeji oo karti isku yeel chief engineer in fact keep encouraging me my son just to courage Parried. Then they went upstairs. waxaa la ii sheegay inaan kor u soo baxo oo aan ka soo baxo qolkii injiinka markaan kor u soo baxayna waxaan arkay dhammaan shaqaalihii oo hal goob la fariisiyey anigoo baqaya ayaan fariistay markaas ayaa hogaamiyihii burcadda waxa uu yidhi dhammaantiin baqdinta iska saara cidina wax idinku samayn mayso annagu shirkadda markabka leh ayaan la xaajoonaynaa qof kastaana waa inuu shaqada halka uu kaga jiray ka howlgalaa sidaas ayaana ku qaadanay amarkii markan hawshii burcadbadeed waa ay fushay maamulka markabkana waa ay la wareegeen waxaana loo boqoliyey gabadyada ay burcadbadeedu saldhigga oo ahaa ee xeebaha qaawan ee badda hindiya ee gobolka mudug halkaasi oo ay ka bilowdeen gorgortankii madax furashada 9 meel u jirta xeebaha Yemen ayaa nala ka soo qabtay waxaana nala keenay deegaanka Garcad oo ka tirsan degmada Garcad waxayna burcadbadeedu dalbadeen madax furasho gaarisa $10 milyan taasoo ku adkayd shirkadda markabka lahayd markabkuna waxa uu ahaa mid duuga 36 sano ayuu shaqaynayay xamuulka uu sidana waxa uu ahaa matooro scrap ama aan shaqaynayn iyo konteenaro badan oo dhami ka yaraa $5 milyan sidaa darteed wadaxaajoodkii wuu adkaaday mulkiiluhuna waxa uu siiyey $200,000 ugu dambeyntii waxa uu ballan qaaday $500,000 in uu siiyo laakiin burcaddu way diideen iyagoo jeedku yahay in ay markabka u adeegsadaan ugaarsi waxaana 13 maalmood jirnay howlgal burcadnimo si aan markab kale u soo qabsanno waxaan tagnay xeebaha Cumaan inkastoo xaalku sidaasi u adkaa haddana badmaaxayaashu weli rajo ayay qabeen waxaana ay ku fakerayeen in ay wax uun isku dayaan si ay xorriyaddooda u helaan waxaana u suuro gashay inay dhexdooda iska helaan telefoon ay xidhiir ku samayn karaan waxaana ay bilaabeen in ay xidhiir ballaadhan la sameeyaan warbaahinta adduunka safaaradaha dalalkooda qaramada midoobay iyo ciidamada la dagaalanka burcadda ee fadhigoodu yahay badaha ku xeeran Soomaaliya waxaana ay mar walba ka rajo qabeen in ay gurmad iyo samata bixin heli doonaan. Well, initially I have the number of the UN Information Center in Washington. tii waxaan hayay nambarka xarunta xogaha ee qaramada midoobay ee Washington markaas mid ka mid ah saaxiibaday ayaa ii sheegay inuu hayo telefoon qarsoodiya markaas ayaan wacay waxaan u sheegay waxa nagu dhacay in la afduubtay jawaab celintoodii ma xumayn waxaana ay siiyeen nambarka qaybta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waan wacay sidoo kale iyana waxaan u sheegay sidii oo kale waxay u yiraahdeen lambarka maadiga haysta ha ayaan idhi inkastoo aan aqoon qofka ila hadlayay waxa uu sheegay in marka uu yimaado ninka madaxda ka ah xafiiska inuu ila soo xiriirsiin doono
waa sida uu igu yidhi laakiin wax jawaaba oo dambe ma helin xidhiidho kale ayaan sameeyey ugu dambayn waxaan ku guulaystay inaan helo nambarka xafiiska xoogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon waxaan helay mid ka mid ah xoogaymihiisa waxaan u sheegay inay muhiim tahay inaan la hadlo Ban Ki-moon waayo gaaniyaan ayaan ahay dalkayguna waxa uu ka tirsan yahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxaana ii sheegtay inay samayn karin inay u geyso telefoonka laakiin warkaaga waxay tiri waxaan gaarsiinayaa Ban Ki-moon war dambe kama helin waxaan kaloo la xidhiidhay Human Rights Watch Anti-Piracy Group Norway ITF iyo VOA iyo BBC sidoo kale war dambe ma helin dadaalada aan samaynayo oo dhan way shaqeyn waayeen all our ranks, everything that they needed, they took it from us. They would contact us, and nothing came out of it. Me, second engineer and chief engineer were quite brave, and were having a secret phone on board. aniga iyo injineerka iyo ku-xigeenkiisa oo kaliya ayaa isla ogeyn isticmaalka telefoonka satellite-ka oo aan isticmaalaynay ilaa bishii August 2010 ilaa January 2011 cidna ma xiisayn arintayada xilligaasi waxa uu ahaa xilli fiican cidna nooma imaan annagu waxaan isu diyaarinay in aan bixi doono waxa laale iyo wixii warbixina ee loo baahdo ee khuseeya markabka waan bixinay saddexdayadu waan isdhiirigelinay meel kastana waan gaarsiinay warkayaga laakiin cidna dhag jaraq nooma siin xilligaasi maamulka Puntland gaar ahaan 2011-2012 waxa ay sii xoojiyeen barnaamijkooda la dagaalanka burcadbadeeda waxaana howlgallo istaba jooga waday ciidamada badda waxaana ay ciidamadu isku baahiyeen xeebaha bari ciidamadan hadda waxay dhisan yihiin muddo 2 sano xilliga ay dhisnaayeen hawshooda waxay isugu jirtay hawl tababaro iyaga loo fidinayo kadibna waxay noqotay hawlahooda waxay u jaanqaadeen dhinaca howlgallada waxaana maaragtay hadda ay fariisimo ku leeyihiin degmooyinka xeebaha ah xaafuun isku shuban baargaal iyo eid howlgalkaa wuxuu ku bilowday inaan horta aan helno informationka ama xogaha ku saabsan nimankan piracy-ga ah maraakiibta ay haystaan goobaha ay ku sugan yihiin waxa ay kala yihiin maraakiibta meesha ka soo jeedo inaan helno inkasta oo xaalku sidaasi ahaa Puntland ciidamadeeduna ay ku diyaarhaayeen in badan oo xeebaha Puntland ka mid ah howlgallo ballaaran ay halkaasi ka sameeyeen dhanka kale to badmaaxayaashu weli ma aysan quusan oo waxay weli hoosta ka wadaan xidhiidhadii ay la sameynayeen beesha caalamka iyo cid kastoo ay isleeyihiin markaasi waxba idin qaban kartaa markanse Francisco oo ahaa ku-xigeenka injineerka markabka waxa soo wajahday khatar la xidhiidha telefoonada qarsoodiga ah ee uu dirayay oo burcad markan waa ay ka war heleen I contacted the rescue team in Nairobi. waxaa jirtay waqti aan la xiriiray tiimka badbaadada ee Nairobi degan waxay xaqiijiyeen inay imaanayaan waxayna i weydiiyeen tirada burcadda waanu sheegay inay yihiin 13 nin waxay kaloo ay weydiiyeen halka aan joogno waanu sheegay waxayna ii sheegeen inay imaanayaan laakiin waxa ii xigtay in hogaamiyihii burcadda oo xanaaqsan uu ii yimid si kulana iigu sheegay xiriirka aan la sameeyay tiimka badbaadada oo aanu sheegay sida burcadda iyo halka aan joogno waxaan ku sugtay in uu dilo waan qayliyay oo waxaan u sheegay inaan telefoon haysan laakiin aan la hadlay safaaradeeda isna uu ogaa oo aan kula xiriiray mobilkiisa laakiin wixii aan u sheegay oo dhan ayuu ii sheegay wuxuuna igu yidhi iyagaa ii soo sheegay inaan la xiriiray lambarkooda iyo magacyadoodiina wuu ii sheegay isagoo qustay run ahaantii waxa uu ii sheegay oo dhan oo wixii aanu ku wada hadlaynay xafiiska badbaadada nasiib wanaagsi waa la cafiyey maalintaas wixii ka dambeeyeyna waxaan shaki ka qaaday xitaa saaxiibaday xiriir qarsoodiya oo dambana ma samayn waxaana ogaaday in hawsha burcadbadeednimadu tahay hawl ballaaran oo caalamiya oo isku xidhan burcadda aad taqaanaanna waa qayb yar oo ka mid ah shaqadan waqtigu waa u dheeraaday saahidii waa ay yaraatay kharashkii waa u batay ugaarsigiina waxba waa ay ku soo waayeen burcaddu shidaalkiina markabkuna uu u baahan yahayna waa uu sii yaraanaya dulqaadkiina waa uu dhammaaday carada burcaddu waxay u kacsantay sida mawjadaha badda badmaaxayaashuna waa ay rajo dhigeen
tamartooduna ma fiicna waayo hal mar ayay maalintii wax cunayeen biyaha ay cabayaanna ma aysan hayn kuwa nadiif ah waxaa loo baahday in loo guuro deegaano kale oo burcadu ku haystaan maraakiib kale oo qaar ka midii heshiiskoodu dhamaaday si kharashkaba looga raadsado maadaama wadahadaladii waxba ay ku dhan waayeen loona baahday in ugaarsi kale la sameeyo iyada oo la isticmaalayo markabka shidaalkiina wuu go'ay waxayna bilaabeen inay jigdilaan madaxda iyo saraakiisha markabka kuwa maamulaya saliidda iyo shidaalka markan qisadii way isbedeshay waxaana bilowday in la dhibaateeyo shaqaalaha waxay nagu qasbeen inaanu hobyo geyno xilligan waa xilli ay dabaylo dhacayaan mawjado xooggan ay jiraan markabkuna waa markab duuga waxaan u sheegay in aysan suuragal ahayn in markabku socdo waxay ii sheegeen in waxaasi aysan waxba ka gelin waxayna igu amreen in markabku socdo laakiin waa socon waayey oo dabaysha ayaa soo celinaysay shidaalkuna kor ayay ii kaxeeyeen oo qolka injiinka ayay iga saareen kadibna makiinada ayay dhagaha iga jareen iyagoo ku qaylinayay hobyo mana geynaysaa muddo sanad iyo 3 bilood ayaan qol kaligay ku xirnaa waxayna igu samayn jireen argagax markaan dano inaan seexdo kadibna waxaa igu dhacay shoog iyo hurdo la'aan waxaana noqday sidii qof waalan oo madaxa ayaa aad ii xanuunayay يجيب لي نوع من الجنان الخفقان وقلة النوم. We were really beaten, and what I saw being done to my elderly fathers. xaqiiqdii waana la garaacay waxaan arkay ee lagu sameeyey odayaasha aabayaashaya waa wax laga xumaado oo cabsi leh waxaan loola dhaqmay si aan bini'aadanimo ahayn ilaa boqolaal Soomaali ah ayaa noogu soo koray markabka dhammaantoodna ma jirin qof noo naxay waxaan markaasi nacbaystay Soomaalida waxaan naftayda u sheegay in meel kasta oo aan Soomaalida ku arko xitaa dalkayga ha ahaatee aan fariin cad ugu sheego inaan rabin inaan ku arko agteyda xitaa haddii aan kambani shaqo ka helo oo Soomaali ka shaqayso waxaan go'aansaday inaan shaqada ka tago I'm going to give a warning that I don't want to see that Somalia around me. xaalka badmaaxayaasha adduunka iyo wadamada ay u dhasheenba waxa ay kala socdeen warbaahinta laakiin ma jirin haba yaraatee wax macna leh oo laga qabtay xaaladooda la haystayaasha shirkadda markabka lahaydna waxay sheegtay inaysan awoodin dhaqaale ay ku bixiyaan madax furashadaasi hase yeeshee maamulka Puntland oo badi ka qayb gali jiray shirarka caalamiga ah ee looga hadlayo arrimaha burcadbadeeda waxaa ku bilowday xiriir ay la sameynayaan Puntland wadamada dadkooda lagu haysto markabka Iceberg 1 iyaga oo dalabkooduna ahaa bal in Puntland wuxuun ay ka qaban karto badbaadada dadkaasi good example waxa shirka hadda ugu dambeeyay aan kaga qayb galay anoo Soomaaliya matalaya Tokyo oo ay soo qabanqaabeen qolo rikaab leeyahay iyo Djibouti Code of Conduct dadkii aan isku arnay waxa kamid ahaa dowladda Yemen madaxa centerkan information centerka wuxuu igu yiri Cabdirasaaq hawsha ayada waxaan ugu haysaa xanuun waxaanu ka jooglaanahay shacabkii dowladdii inta waa loo imaanaya arrinta maxaa ka qabanaysaa arrinta ayada marka waxay ka liftay inay qaraar qaadato dowladda Puntland iyadoo isku tashanaysa waliba resources-keeda yar kuna tashanaysa ciidamadeeda oo u dhaartay inay maaragtay ka badbaadiyaan nimanka laakiin muddadaasi ka hor ciidamada baddu waxa ay wadeen qorshayaal dhowr ah oo ay ku baadigoobayaan xogta maraakiibta lagu haysto xeebaha Puntland oo dhanka badweynta Hindiya ah halkaasi oo ay ciidamadu ka wadeen howlgallo ballaaran markabkaas muddo badan baan informationkiisa wadnay marar badan waxaa la sheegay in laga dejiyay shaqaalaha markii aan xogtiisii daba soconay muddo 5 bilood qiyaastii ah oo ay xogtaas isugu soo ururtay in markabkii uu shaqaalihii lagu soo celiyey oo halkii taagan yahay xeebtana u jira biyaha meesha ay ku dhammaanayaan 250 mitir ilaa 300 mitir baan waxaan go'aansanay inaan fursadaha aan ka faa'iidaysano madaxweynaha Puntland oo si weyn uga soo horjeeday guud ahaanba madax furashada waxa uu aqbalay in ciidamadu ay qaadaan tallaabo military oo lagu badbaadinayo badmaaxayaasha lagu haysto markabka Iceberg 1 isagoo oo ku kalsoonaa xogta ciidamada waxaana bilowday diyaar garowga ciidamada
ay ku gaadhi lahaayeen halka markabka lagu haysto oo masaafo ahaan 700 oo kilomitir ka fogaa barta uu ka bilaabmay abaabulka howlgalku kasoo bilownay uu ku yaallo Quarterku halkaas qorshahaasi lagu soo sameeyay dagaal lagu soo dejiyay ama warta madaxweynaha uu halkaa ka soo bixiyay dabadeedna aan soo tagnay degmada Eyl oo ah saldhigga labaad ee ciidanka badda Puntland halkaas baan haddana wixii logistic iyo ciidanka abaabulkiisa ugu dambeeyay aan ka dhamaystirnay xogihii iyo informationkii ugu dambeeyayna aan halkaa ku soo aruurinay 10kii bisha December ayaa waxaan gaarnay deegaanka magaaladaasi Garcad oo ah tuuladaas oo meeshii markabkaasi iceberg one uu taagnaa sidaas oo jirtana wadamada dadkooda la haystay iyo beesha caalamku toona wax gacana kama geysan howlgalka bilowday iyagu kama qayb qaadan in fact laakiin kaligood ma yaan oran international community waxay ka qaadatay ma jirto waxaan la xiriiray EU Naval Force waxaan la xiriiray NATO waxaan la xiriiray CMF waxaan la xiriiray information technology la yiraahdo gidi waxa weey waa daawanayeen kadibna waxa bilowday howlgalkii waxaana ay ciidamada ka hor yimid dagaal adag oo ay burcadu iskaga cabinayaan duulaanka ciidamada ee dhanka bariga iyo badaba ay ka soo qaadeen inkastoo ay ciidamada hortaalay sidii ay u badbaadin lahaayeen lahaystayaasha oo ahayd caqabada ugu adag markii ugu horeysay waxa weeyaan waxaan xagga badan kaga dul soo diyaar garoonay saxiimado aan soo diyaarinay saxiimadihii markii ay xabad ku soo diyaar garoobeen baan xagga bariga ka galay nimankaas runtii way hubaysnaayeen si adagna waa noo dagaalameen laakiin annaga haddana waxaan haystay two option waxbaan isku yargaadaynay sababta waxa weeyaan hostage-ka inaad badbaadisaa la rabaa waxaa la rabaa burcadda inaad layso qabataa lagaa rabaa inaad midna disho midna badbaadiso waa wax adag oo haddana hal weel ku wada jira wax sahlan ma aha arrintaas waa tan lagu qaadatay inaan soo gaadhno dhowr iyo 10 casho The time they started the shooting, that was the 10th of December. In the morning, I just finished my prayers and I heard the first shot. Boom. xaqiiqdii 10 sekin subaxnimadii ayay bilaabantay rasaasta dhawaqii koowaad markaan maqlayna waxaan u qaatay rasaastii caadada u ahayd burcad balse haddaan cabaar joogay rasaastu way sii badatay xilligaa qol gaara ayaan joognay oo lama joogin saaxiibaday daaqaduhu way xidhan yihiin albaabku waa ay xidhan yahay waxba kama garanaya xiisada socota dabadeed soo bax ayay nagu yidhaahdeen anigu waxaan u qaatay inay dilayaan badmaaxyada laakiin markaa soo baxay waxaan arkay shaqaalihii oo dhulka jiifa anna waa laygu daray ilaa hadda waxba kama ogi in annaga naloo socdo waayo waxay hore burcadu noogu sheegeen in al-shabaab ay halkan ka dhowdahay oo ay dhici karto inay soo weeraraan waxaan u qaatay in xaaladdu sidaas when it continued and was it the second day or the third day when my second engineer called and he was told that maalintii labaad ayay ahayd markii rajadii naga luntay nagu soo noqotay kadib markii saaxiibkay ku-xigeenka injineerku noo sheegay inuu xiriir telefoon sameeyey oo ka war helay in dagaalkani uu yahay mid annaga nala ku badbaadinayo After a day continuous fighting in the night, the following day the pirates came and told us that this group are Somalians, so we should call our embassies and tell them that we should go away. maalin kadib dagaalkuna uu sii socda burcadda ayaa ay sheegtay in ciidankana yihiin ciidan Puntland ah marka waa inaad la hadashaa bay dhaheen safaaradaadii oo aad u sheegtaa in ciidanka dib ay u noqdaan haddii kale khatar ayaanu u nahay in nala dilo markaas ayaan wacay safaaradeedii Kenya ee Ghana waxayna ugu xireen safaaradda Ghana ee Ethiopia si degdeg ah ayaa looga soo jawaabay hadalkaygii waxa la sheegay inay ka war hayaan ciidankaasi waxayna dhaheen waa ciidanka badda ee Puntland waxayna rabaan inay idinkeedin badbaadiyaan ee istajiya ayayna igu yiraahdeen
waan degay asxaabtaydiina waxaan hoos ugu sheegay arrinta laakiin cabsi ayaa weli qabay armaan dagaalka waxaa idinku soo gaadhay these guys are coming to rescue you. So just be calm and see what will happen. ciidamadu waa ay sii wateen howlgalkoodii waxaana adkaaday dagaalkii burcadana saanadii iyo wax walba gabaabsi ayay ku noqdeen 3 waa dhintay 3na waa la qabtay qaar kalena waa dhaawac dhanka kale ciidamadu waxa ay u sii gudbeen deegaanka Garacad halkaasi oo ahayd halka kaliya ee burcadu ay ka rajo qabeen inay ka helayaan gurmad waxaana meesha ka baxay fursadii kaliya ee rajada ay ka qabeen waxaana ciidamadu kulamo la yeesheen odayaasha deegaanka si ay ugu qanciyaan burcadu inay isdhiibaan burcadku markii ay dareemeen culays ciidan sahaydii ay gudaha ku haysteen ay ka dhamaatay ciidanka Puntland in ay weeraraan markaba dib ahaantiisa dadkuna ay wax ku noqdaan iyo waxay kala doorteen in ay wado u furaan burcadka oo markaas iyagu holiyay inay ka baxaan markaba kana yaacaan sidaasina howlgalkii ayaa ku soo afmeermay ciidamaduna waxa kaga dhintay hal sarkaal waxaana kaga dhaawacmay qaar kaleeto badmaaxayaashiina waxa ay heleen xorriyadoodii. Actually, on the very day in which I realized the pirates were getting off board, tears came out of my eyes. This operation ilmo ayaa ka timi indhahayaga waxaan ogaanay in howlgalkan oo dhan ay wadeen Soomaali xaqiiqdiina nacaybkii nagu gaamuray meesha ayuu ka baxay sida qiiqa oo kale kuwiina ciqaabay waxaa noo bedelay kuwa naga saaray dhibkii kuwii aan ka filayay inay yimaadaan marna ma ay rumayn riyada laakiin Soomaalida caalamka naga daawanaysa ee mar walba lagu sifeeyo kuwa aan waxba ahayn oo mar walba lagu qoro kuwa Afrika ugu hooseeya waa kuwa kaliya ee iskood ugu diyaar garoobay inay nabadbaadiyaan ilaahay baa mahad leh iyo ciidamada badda Puntland oo nabadbaadiyay which they always seems to classify them as nothing, which they always rate them as the last in Africa. It's only these people who organize themselves. Oh, when we released, we contacted them, and in fact, my wife asked, "How manage? Which people rescued you?" I told them the same Somalians who captured us. markii aanu soo badbaadnay waxaan la xiriiray reerkay waxay weydiiyeen yaa idin soo badbaadiyay waxaan u sheegay in Soomaali na soo badbaadisay markaas ayay yiraahdeen ma Soomaalidii idin qabsatay ma hubtaa hadalkaas markaas ayaan idhi ha Soomaali ayaa na soo badbaadisay maxaa yeelay dadku dad xun iyo kuwa wanaagsan ba way isugu jiraan But you know, there are bad people among good people. So in fact, the good people came to our rescue. This PMPF, they've done marvelously well.
maamulka Puntland siyaasad ahaan markan waxa uu dareemayaa in ay fuliyeen mid ka mid ah qorshaha siyaasadeed ee xukuumadda ee uu hogaamiyo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo si weyn uga soo horjeeday in guud ahaanba burcadda la siiyo wax madax furasho ah isla marhaantaasina lagala dagaalamo dhulka sidoo kalena waxa soo gaaraya Puntland hambaliyooyin ka imanaya beesha caalamka iyo wadamadii dadkooda lagu haystay badaha Puntland wuxuu ahaa positive aad u fiicnaa Puntland waxay ku heshay recognition inay ka dhameynayso siyaasadda madaxweynuhu hadda ka hor ballan qaaday oo ahayd inuu la dagaalami doono burcadbadeeda meel kasta oo joogaan feedback aan helayna wuxuu ahaa mid loo ku hambalyeynayay in general dowladda Puntland howlgalka isaga ah meel kasta aan emailka helayna ama dad fiiriso paperska waraaqaha ka soo baxa wadamada qaarkood even UN ku xataa statement ka soo saaran ay u hambalyeynayaan BNBF hawsha ay qabatay mararka qaarkood marka dadka expertiga ama khubarada arrimahaas aad wareysatid waxay leeyihiin waa arrintaas Afrika kama dhicin hadda kor in hostage crisis ama dad afduub lagu haysto saa loo soo badbaadiyo ciidamaduna waxa ay noqdeen xidiga guusha waxaad noqoteen ilaa intii burcadbadeed Soomaaliya ka samaysantay xidigtii waxa noqday ciidanka BNBF oo hawsha qabtay markii la isku daro waxa ciidan ka shaqeynaya oo dhan inaga xidigta ay la tahay waa taariikh burcadbadeedana fariin cad ayay u tahay tani badeena Puntland maanta waxa ku xiran laba mar fariinta aan u dirayaa burcadbadeeda waxa weeye wixii kuwan ku dhacay baa ku dhacaya haddii aynan si nabadgelyo ah dadka iyo maalka aad haystaan ay u sii deyn meesha joogtaan oo loogayahay ciidanka Puntland iyo Puntland government way ku dhaaratay meel kasta oo joogto burcadbadeena kula dagaalanto magaalada Boosaaso oo ahayd halka laga dhoofiyay badmaaxayaashana waxa soo gaarayay wufuud caalami ah oo isugu jira wadamada Hindiya Yemen iyo qaramada midoobay si ay u qaadaan badmaaxayaasha oo ay ula mideeyaan qoysaskoodii فخامة الأخ الرئيس السيد عبد الرحمن محمد فروري رئيس ولاية بونتلاند جمهورية الصومال المحترم تحية طيبة وبعد يسرني أن أنقل لسيادتكم تحيات فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية وشكرهم على جهودكم المبذولة في تحرير بحارة الباخرة آيسبرغ 1 وأننا نقدم لحكومة الولاية والقيادة الأمنية والعسكرية التي قامت بإنجاز هذه المهمة فإننا نؤكد لكم بأننا سنعمل بكل ما نستطيع لدعم جهودكم في مكافحة القرصنة ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله مع تمنياتنا لكم مزيدا من التقدم وللعلاقات الأخوية بين شعبينا وبلدينا الشقيقين مزيدا من التعاون والازدهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور علي حسن الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي. madaxweynuhuna markan waxa uu diyaar u yahay in uu ciidamada hortago oo uu u sheego waxa uu dareensan yahay isagoo ugu hambalyeynaya guushii ay ka soo hooyeen howlgalkaasi waxaan maanta idinku nimi ciidankiina kan badda booliiska badda BNBF qaybtiisii soo fulisay howlgalkii taariikhiga ahaa oo qiimaha iyo qaayaal ahaa oo bishaan December 10keedii ilaa 15keedii ka socday gobolka Mudug tuulada la yiraahdo Gaarcad oo degmada tuulada Gaarcad ka tirsan oo libta soo hooyay oo magac ku yeeshay ciidanka dhexdiisa Puntland oo dhan iyo shacabkeeda Soomaaliya oo dhan iyo adduunka oo dhan inaan idinka hambalyeeyo inay ku bogaadiyo inay hor imaado anigoo aad iyo aad u faraxsan oo maqsuud ka ah hawshaad soo qabateen marka u horeeya waxaan ilaahay uga baryayaa cabdirasaaq cawil faray sargaalkii ku dhintay howlgalkaas in ilaahay jannadii ka waraabiyo waaba yahay oo shahiid weeye qoyskii eheladii iyo intuu ka tegayna ilaahay ka samaysiiyo waa haliyey taariikh ku leh ciidanka badda iyo ciidanka amniga oo Puntland oo dhan iyo Soomaaliya